السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta maanta dee waxa dhacay wax dhici jiray hadiya jeeraale doorashada markay soo dhawaato xisbil xaakimku hadiya jeera uu khalkhalaa waa marka guusha laga helayo ogaado sidaa hudheeladu ku waasha absolutely waabayna soo martay waa 2009 waana soo martay filimku waa sidiisii taariikhdu waxa la yiraahdaa dee sala cale tarjac ila aslaha iyada isku soo noqota subaxa saaka waxa dhacay reer Soomaaliland waan idin sheegaynaa waxa jirta maalmihii dhawatay hawsha la waday saldhigyada xukuumaddan iyadu markay DB World galeysana cid uma yeeran aqoonteeda leh markay saldhig galeysana cid uma yeeran aqoonteeda leh xisbiga wadan isagoo qiimeynaya qadarinaya la xajala ka qaba qaranka wuxuu saaray cidii u xil saarnayd cidii waxa garanaysay dhowr iyo 10 korneyl iyo janano ayaa loo xil saaro loo magacaabay koob iyo 20 cishay fadhiyeen arrimahaas ka hadlayeen diraasad bay sameynayeen muxuu khutuuradii noogu leeyahay saldhigu muxuu faa'iido inoogu leeyahay baahid way soo dhameystireen maanta ummadda isugu yeedheen xitaa waa la casumay wasiirada xisbiga kulmiye laftiisa waa la casumay wicid waa la casumay qaranka guud ahaanba waa la casumay waxa la doonayay diraasada ragga aqoonteeda leh expertise-ka ah inay noo sharxaan faa'iidadu leeyahay iyo khasaaruhu leeyahay wax allaaliyo wax kale meesha ku jiray ma jiro nimay waxa dhacday waraaq baa la keenay xukuumaddu keentay halkan Mansoor bay keentay wadal Mansoor wuu aqbalay dadkii waa naga celiyay wax allaaliyo wixii imanayay iyo umadii la casumay la marti qaaday kaararkii waa kuwa waxa ku taalo waa arki doontaan xabadana midsiin doona xisbiga wadani wuxuu kugu marti qaaday ka soo qaybgalka daraasad lagu soo bandhigayo sharci darrada dhibaatooyinka ka dhalan kara iyo mugdiyada ku gadaaman saldhigga military ee Berbera taasay hortahay ummadda loo bandhigi lahaayoo dee sala caleete dhowr iyo 10 korneyl iyo ex korneyl ama ex dee janana way ahayn taas horta waa taa maanta waa arkaysaanoo dee sala cale markaa waxaan idiin sheegayaa waa layga dambeeyaaye ummaddu ha ogaato halka xukuumaddeeni marayso hal qodobna waan idinku darayaa xalayto kulmiyaa lahaa waxa isku beegmay shirkeennan hadda maanta ee la diiday iyo mooshinay qoladaasu soo dhigayso haddaba waxaan idiin sheegayaa nimayo meel baynu ka dhoohannahay waan maxamuud xaashi isagaa qirtay oo xaflad jiddaa ka qirtay in madaxweyne Siilaanyo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wada saxeexeen heshiiskan saldhigga war Soomaaliland maqal war balayaabkan taqraaya oo tansaaya inagiina wali way nagu sheegayaan iyagiina fara waxaanu ku haynaa dee sala cale iyagoo dee faraad gacanta dhiig kula jiraynu haynaa cid allaalay cid ka hadlaysaana ma jirto waxaanu leenahay qaaymintu waa idinka nimanka dalka iibiyo waa idinka nimanka aan saxeexin iyagoon saxeex lahayn saxeex xamar ku qaatay saldhigyada waa idinka nimanka dilaalka ku qaatay waa idinka nimanka aan dalka u turayno waa idinka ummaduna way idin og tahay xaamiyaha xaramiyaha kii loo diray ayaa xadaya oo iibinaya annaga waxba noloma dirin waanu soo soconaa annagu waana taa waxaan ku soo soconaa waa taa barnaamijkaygu wax allaaliyo wixii qarankan dib u keenaya anagu keeni mayno ballan baan idinku qaadnay barnaamijkayga waan idin tixi doonaa noocanna uma shaqayn doono dalka ma iibin doono dalka waxbaanu soo gelinaan ma iibin doono mana faasixi doono xitaa waxaa idinku soo socda buuraha xitaa la iibinaya salla cali maalin dhow waxaan leeyahay marka arrintaa shacbiga ha ogaado go'aan baanu ka gaadhaynaa annaguna Mansoor laftiisana waxaan leeyahay Mansoorow hudheel baa tahay private annagu ku cambaarayn mayno laakiinse waxa weeye ilaa aad dee u xor noqotid hudheelkaaga oo aad sal cale sida hudheelada kale dee aad u madax bannaanaatid dee annagu sidan ku jiri mayno raalli baad naga ahaanaysaa xukuumadday soo wada hadla ama sal cale dee iska soo celi ama dee aanu dee doonano dee sal cale